السلام عليكم سروال saaxiibayaal meel kastoo ka joogtiin dunida iyo daafeeda magacaygu waa Axmed Faarax halkan nagala socotiin waa Hibilaa Media Production ee soo kale Middle School saaxiibayaal waxaan rabaa inaan halkan ugu jawaabo su'aal in badan la soo weydiiyay dadka qaarkoodna ay wax badan ka fahmeen dadna aysan weli fahmin haddaba saaxiibayaal su'aashaas inta badan la soo weydiiyay ayaa waxay ahayd waa maxay WinRAR waxaa jirta in badan marka ka soo hadlaynay muuqaaladii video editing ku saabsanaay ama software-ada aan la soo degaynay inaan dadka lahayn kombiyuutarka ugu horreyn waa inaad ku shubataa waxa la yiraahdo WinRAR haddaba dad badan ayaa waxay soo weydiiyeen waa maxay WinRAR maxuu inoo qabtaa la'aantiis ma shaqaysan karaa saaxiibayaal WinRAR waa software loogu talagalay in software-ada aad rabtid inaad kombiyuutar ku shubatid aad kula soo degtid ama aad ku soo install garaysatid software-kaas ma aha website aad galaysid kadibna aad software-ada ka dhex raadinaysid laakiinse tusaale ahaan haddii lagu yiraahdo gurigaan ayaa degan tahay gurigana furihiisa aa lagu siinay gurigaas umana soo hooyo kartid mana u soo harsan kartid laakiin software-kaan asaguna waa sidoo kale kombiyuutarkaaga wax software ta ku shubatid software dhammaystiran kuma soo degi doono WinRAR la'aantiis haddaba WinRAR-ku wuxuu noo suurtagelaya waxay tahay software markaan la soo degayno oo aan kala soo degayno website-yada ama browser-ada kala duwan inuu software-ka asagoo dhammaystiran noo soo qaado sida buuggi ama karaaggi inuu software-ka xogtiisa dhammaystiran oo inoo soo qaado WinRAR-ku haddaba saaxiibayaal waxaan arki doonaa ugu horreyn WinRAR-ka loogadiisa ama nooca waa soo egyahay meesha laga helo iyo sida kombiyuutarka loogu shubto hagaag ugu horreyn waxaad samayn doontaa kombiyuutarka waxaa ku xirtaa internet si aad ula soo degtid software-ka lagu magacaabo WinRAR saaxiibayaal kombiyuutarka internet ku xirtid waxaa soo furtaa browser-kii aad markaas isticmaashid aniga waxaa soo furi doonaa browser-ka Google-ka kadib markaa browser-ka soo furtid kadibna halka sare ee search-ga wax lagu qoro waxaa ku qortaa intaan oo keliya WinRAR inta oo keliya ayaad ku qoraysaa haddaba saaxiibayaal software-kan waxaa idin soo dhigi doonaa qaybta description-ka ee halkaas kala deg muuqaalka aad daawanaysid qaybtiisa hoose ee description-ka kadib markaa enter yiraahdo ama aan search gareeyo waxaa ii soo bixi doono software-ka la yiraahdo WinRAR wejigiisa ama sida uu ogyahay software-kan waa isla arki doonaa sidoo kale waxaan arki doonaa software-kan sida kombiyuutarka loogu shubto looguna shaqaysiiyo kombiyuutarka saaxiibayaal ugu horreyn markuu sidaan kuugu soo baxo waxaad ku dhufanaysaa halkan ay ku qoran tahay WinRAR downloader free halkaas markaa ku dhufatid kadibna waxaa ujeedaa laba option ama laba weji ayaa kuu fura horta software-ku waa kana waa noocan boorsada u samaysan waay oo loogada WinRAR-ku noocan ayay u muuqataa haddaba saaxiibayaal labada qodob ee ku hortaalaya waxay tahay software-ka waxaad rabtaa mid free ah oo inaad mid free ah la soo degtid miyaad rabtaa mase waxaad rabtaa mid lacaga halkan waxaa ujeedaa inay ku qoran tahay buy ama iibso halkan waxaa ku qoran downloadan meesha ay kugu qoran tahay waa free kadibna marka annaga uma baahna hadda mid lacaga waxaan u baahannahay mid free ah sida midkan free ah ula degna waxaa ku dhufan doonaa halkan ay ku qoran tahay download WinRAR kadibna halkaas marka ku dhufano waxaa uu samayn doonaa wax yar oo searching markuu sameeyo saaxiibayaal software-ku aad ayuu u fudud yahay oo uu degi doonaa kombiyuutarkaaga ayuu kugu shubmi doonaa hoos ayaa u baxaysaa kadibna halkaas ay kugu qoran tahay downloader ayaad maaragtay ku dhufanaysaa saaxiibayaal hadda wuxuu bilaabi doonaa software-ku inuu dego kadibna markuu software-ku dego waxaa samayn doonaa inaan bal aragno qaabka uu yaallo iyo sidoo kale sida kombiyuutarka loogu shubto software-kan WinRAR waqti gaara ma qaado doono lacag badanna kaama cuni doono software-kan haddaba waxaa ujeedaa meeshaan dhowr step ayaa maaragtay lagu soo saaray stepyada halkan lagu soo saaray macnaha waa step iska mari doontid ama shanta waddo ee mari doontid shanta step ayaa waxay tahay ugu horreyn inaad click siidid oo software-ka WinRAR aad soo furtid stepka labaad ayaa waxay tahay inaad tirahdid double click ama right click tirahdid kadibna aad tirahdid yes ama run kombiyuutar way ku kala duwan yihiin halkan waxaa sidoo kale leedahay install halkan okay ayaa leedahay kadibna waxaa leedahay close ugu dambeyna kombiyuutarkaaga sidaas ayuu ugu shubmi doonaa software-kii WinRAR saaxiibayaal waxaa ujeedin halkan hadda software-ka uu noo dhamaaday WinRAR aniga hore ayaa kombiyuutarka ugu soo shubtay laakiin hadda waxa ugu shubaa ayaa waxay tahay ama ujeedka ugu shubaa inaad ila aragtiin qaabka kombiyuutarka loogu shubto software-ka la yiraahdo WinRAR haddaba software-ku sidaan kugu dhamaado isaga ayaa dul tegaysaa kadibna waxaa leedahay right click kadib waxaad dooranaysaa halkaas ay kugu qoran tahay show in folder macnaha waxaa ay tusidaa meesha software-kan lagu install gareeyay ama meesha la geliyay wuxuu kusoo geli doonaa qaybta download ee kombiyuutarkaaga software markuu ugu horreyda sidaan ayuu maaragtay kugu soo bixi doonaa oo waa kana sib waaye sidaan ayuu maaragtay kugu soo bixi doonaa adiga laba way adaa khiyaar u leh inaad double click tiraadid inaad software dul tagtid right click tiraadid kadibna aad tiraadid run administrator taas waa samayn kartaa labadaba waa samayn kartaa inaad double click tiraadid inaad software-ka dul tagtid aad tiraadid run administrator haddaba saaxiibayaal intaana software kombiyuutar ku shuban ka hor kombiyuutarka waxaa ka xirtaa internetka haddii kale software-ka wuxuu kaa noqon doonaa hadhowti mid aad online ahaan u diiwaan gelisay oo markastoo software-ka xirta inaad soo kicdo waxaa lagu dhihi doonaa kombiyuutar ku xir internet kombiyuutar marka internet ka xirna waxaa samayn doonaa hadda double click ayaan dhihi doonaa double click markaa iraado kadibna waxaan leeyahay run halkan qorta run aad doorto kadibna waxaan leeyahay yes ma doonaysaa macnaha inaad kombiyuutarkaaga ku shubatid software-ka WinRAR yes ayaan leeyahay kadibna waxaan samayn doonaa install ayaan leeyahay install markaa iraado marka waxaa ku leeyahay browser-ka halka lagu dhigaa
أنا هادو حاليا دريف سي جيدا هاللي ودا وهالكان سي هاللي وشو عيان لي كده نحن ليا انستول مركا إذا صاحب يال كده نحن ليا أوكي استيب قدام بي إيه هاي دان إيه كوسمانينا صاحب يال مرة waxa uu inoo suurtageliyay ayaa waxay tahay in software-rada iyagoo dhammaystiran set upka software-ka dhammaystiran aan la soo degi karno sida buuggiisa iyo karaagiisa waxaan filayaa in aad wax badan ka fahanteen WinRAR sida loola soo dego sida kombiyuutarka loogu shubto sidoo kale steps-ka aad maraysna asaga ayaa horey kugu sheegi doona saaxiib yaal software waxaan soo dhigi doonaa qaybta hoose description-ka halkaas kala deg haddii ay jirto wax su'aal kugu soo noqotana qaybta hoose ee comment-ga ula soo wadaag annagoo kaaga soo jawaabi doonaaye